ummadda Soomaaliyeed waligeed ayada ayaa quraanka wadan jirtay waabka oo lagu dhisaayo oo dugsi quraanka ah oo geedaha ahna ayaga samaysan jiray madaaris markii la sameeyayna ayaga ayaa wata cid banaanka ay uga sugayaan ma jirto hadii ay jiri lahayd quraanka kaalinta koowaad ee caalamka aynu kaga jirno ma aynan kaga jirneen marka jazaakumullahu khayran musaabaqaadkan iyo musaabaqaadka dawliga ee ummadda Soomaaliyeed ayaga oo yaani baasaboorka kala duwan wata ay ku guuleysanayaan waa calaamad Soomaali ay leedahay walaad Arab oo ka hadlayna wuxuu yiri arintaasi in maanta intaas oo musaabaqo intii la qabto dawlado kala duwan loo qabto haddana dadka dawladahaas kala duwan ka kala tartamaya ee soo baxaya ay yihiin wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed sirtaasi waxaan filayaa ikhlaas ka dhaxeeyay awooyaashiinii hore ee Soomaalida ahaa ee quraanka jeclaa barakadoodii ayaa caruurtoodan ilaa hadda ay saas kaalinta ugu siiyeen marka sharaf ay noo tahay in aan calaamad ku noqono quraanka anu Suudaan wax ku bartay oo jaamacad aan ka dhigan jiray waxaan eegay jaamacad la jaamacatul Qur'aan al-Kariim wal Ulum al-Islaamiyya quraanka saddexdii sanaba saddex juz ayaa muqarrar ahayd marka la soo galaayo saddex juz la iska rabaa inta lagu jira afarta sano ahna sanadkiiba saddex juz waana kulliyadka kale oo ma kulliyada quraanka oo kaliya ma kulliyada shariica dhiganayna saddex saa muqarrar nagu ahayd Soomaalida markaan nahay quraanka markii oo warqadda waa lagu galaa imtixaanka shafawina waa la iska qaadaa macallimiinta meel fariistaan ee muqarrarka saddexda juz ah ayay ku leeyihiin kol meel kaaga soo bilaabayana ka soo bax Suudaanta aan wax la baranaynay oo saaxiibadeen ah quraanka markaan la joogo Soomaalida wayna yaqaaneen waxay dhigi jireen marka idinku naga horeeya quraanka imtixaankiisa Soomaaliya daatiin macallimiintu markay daalaan oo idinka aad uga soo baxdaan hadhow su'aal yar yar ayna weydiin doonaane horta idinku gala marka jidkan furi jirnaa annaga tan Soomaalina markaas marka macallinka hor fariisan wuxuu leeyahay xafidta al-muqarrar halkaas kaga bilaabi saddexdii juz ma soo xifdisay xafidta al-muqarrar markaas waxa la leeyahay muqarrar shinu ya akhi shinu Suudaan ta muqarrar shinu ya akhi nahfad al-Qur'an kullah markaas tahfaduna al-Qur'an kullah na'am hal aw ku weydiina ama labo iska buuxu kule markaas saasan calaamad uga ahayn Suudaanka waxay sameeyeen jireen saaxiibadan quraanku ku adkaa waxay sameeyaan marka qaarkood meelaha hore ee maqrada la yiraahdo ayay soo xifdinayaan shanta aayadood ee ugu horeysa hadii gudaha loo sii galo mushkilad ka iimaanayso mid waxaan xustaa maalin marka wuxuu imtixaanku galay asoo wareersan oo ka soo baxay markaas aan kayfa kaana imtixaan imtixaankii ka waran suul wax lagu weydiiyay markaas yiri ya akhi wallahi al-imtixaan al-layla kana sa'ab shadiid jaab lay min juwa guduhu iga keenay kulaha yaani wuxuu rabay in looga bilaabo afatadmacuun ka bilow in la dhaho marka oo afatadmacuun an yubnu lakum waqad kana fariiqun min yasma'unaka saddex aayadood ku xigta markaas waxa looga soo bilaabay wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulayman inta kayfa al-imtixaan jaab lay min juwa guduhu iga keenay dhahay maqrada agteeda iga muuna keen marka Soomaalidu ama gudaha looga keeno ama banaanka ha looga keeno taariikh bay quraanka ku leeyihiin meel walba adduunka waa saas marka dalika fadlullahi yuutihi man yasha marka culimada ka shaqeynaysa oo musaabaqooyinkan qaban qaabinaysa oo khudamada quraanka ah sharaf ay ummadana ku dhaxleeyihiin ilaahay agtiisana sharaf ayaan uga rajaynaynaa maxaa yeelay khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu aad yaada umahsantiin idinku dheeraynin raalina ahaado marka qaarkood in musaabaqaadka intii la qabto meeshan la imaadana way fiican tahay maanta adduunku wuxuu noqday hal qol oo kaliya qolo walba badeecadeeda ay soo bandhiganaysaa waxa maanta lagu tartamaayo ee la kala qabsanayo waxa ugu muhiimsan uquusha dadka iyo maskaxda dadka bariga dhulal kala qabsan jiray oo la isku duulduuli jiray muslimiintu marna way iska celin jireen marna waa la jibin jiray marna way guulaysan jireen al-harbu sajaalun yawmun laka wa yawmun alayka ayuu ahaa laakiin markii taas waxba looga qaadi waayay yaa arinta loo bedelo waxa la yiri dhanka maskaxda arintu ha u wareegto markaas waxa loo soo waray islaamkii inuu soo noloshaan la socon karin oo dib u dhac uu ku yahay marka in la muujiyo diinteennana waan haysanaa nafsiyaadka dadkeennana waan ilaalinaynaa gabdhaheena takriimka la karaameynayana quraanka aan baraya wax meel kale ay nalooga keenaya ma aha rag iyo haweenkana sida ay u dhigayaan dadka aan muslimka ahayn ma aha laba group oo kubad wada ciyaaraysa oo midba midka kale inuu ka guuleysto uu raadinayo ma aha ee waxay yihiin hal group oo hal dhinac ka soo wada jeeda oo hal ujeedo oo ilaahay cibaadadiisa wada xaqiijinaya saasa ilaahay wuxuu leeyahay markii rag iyo haweenka la isku garab wado markii rag la sheego gabdhiina way la socdaan
أو مركي مثلا إن المسلمين مركي لهذا والمسلمات أيال هذا ذاتك النحو آخر السنة ويجينا واو ومركي الإسكو عطفه لما ذوقف ويسلا السعودان هذه لكن ثم لديه لها ويكل هرمر لهاين أو لديه مثلا جاء زيد ثم عمرو هذه لديه لها زيد إماضي كذب أي عمرو إماضي لكن مركي جاء زيد وعمرو مركي لهذا ويسلا السعودين وهي معناه مركي القرآن يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مركا كاسن أسعنا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما مركا رنتي مؤسسة سوق من قابسة مسابقة اقرأ يعد كستو أو قيب كان نقطي أو والدين تنا أي كم دين ويكون مهتسيين